ilhaan cumar walaalayaal ee wiilka habargidil markuu guursaday ku booday walaalayaal ee wiilkii gaalka ka raacday walaalayaal ee maanta soo bandhigaysa iyadoo aygeega dhundhunkanaysa adduunya waxaan ku jirnaa aan rogmanayno walaalayaal oo gabagaba ah haddaba intayna inagu dul gabagabo waxaan doonaynaa dadka innaka inagu xidhan dadna inaan badbaadino dadka iyagu naftooda badbaadin kari waayena aan bartaa uga hadhno haddaba waxaan tusayaa sheeko maanta la yaab le ayaan la yaabay Garowe sidaan uga imiday 2011 wallahi waa sidii ay waxba iska bedelay 2011 saan Garowe ugu yimid waa sidii waxaan la yaabay magaalooyinka kala ka qurux badan imika waxa ka qurux badan ba magaalooyinka sida waxa ka qurux badan magaalooyinka caasimadii hadda ma jirta ama caasimadii Puntland baan u jeeda ma jirteen oo dhan meesha iska male iga raallada walaalayaal qabiilada inta badan ilaahda nama xustid oo qabiil qurun bad xustaa raallada walaalayaal inaan in xaqra maaha qabiilada walaalayaal waxa ay wada daga ama ma jirteenka xukunka wada qaybsaday sida qabiilka la yiraahdo leelkase qabiilka la yiraahdo dhishiishe qabiilka la yiraahdo wasangeli qabiilka dhulbahante iyo qabiilka kale hadaan ka tagay iga raallada walaalayaal haddaba nimanka ugu tunka weyn nimankaasa qaybsada walaalayaal meesha ma jirteenun ma jirteen madaxweynuhu ka yahay walaalayaal madaxweyne ku xigeenada dhulbaanta ka dadku inta badan Puntland ma jirteen ba iska yiraahdo wax ma jirteen la yiraahdo ma jirto walaalayaal meesha waa la wada qaybsaday nimankii dhammaan harti baa ku dhan iyo daarood baa ku dhan walaalayaal haddaba waxaan niyahayaa wiilkan saaka magaaladii Garowe ayaa laga masaafuriyay waliba isagoo caayay magaaladii Soomaaliya caayay oo kale Soomaaliya uma socdo waa la igu dilaya u fiirsada walaaliya xamar meeshu ku soo unku cabeed wuxuu ka xanaaqay maanta waa la igu dilaya oo carooday haddaba goorma ni sheegay goorma nigu lahaa ma jeertaanku ma hayn karaya goorma nigu lahaa war ma dhagaha ayaa laadi goorma nigu ma jeertaanku ninka haday bil hayaan baan kuuri waa hadii ay yihiin la tuqadan baan kuuri wadaqaysa maanta oo ka baxsaday magaalada uu gaadhayna wuxuu gaaray magaalo Afrika uu gaaray Zambia waxa ku soo dhaweeyay nimanka soo jeeda beesha ma jeertaan baa ku soo dhaweeyay waliba waxa ku soo dhaweeyay nin adeerkiya sawirkiisana waa neehaya hadii la dhawayn soo bandhigaya haddaba intuu magaalada ka bixin Garowe waxaan tusayaa magaalada oo xagga sare lagaga qabtay ayaan tusayaa muxuu ahaa kamarada magaalada waa sida tuuladii weeyaan sanaag baa ka qurux badan burca ka qurux badan iyada Hargeysa iska daa Hargeysa waa caasimadii boorma ka qurux badan saylac ba ka qurux badan Jabuuti dana ka qurux badan jigjiga ka qurux badan wallaahi inana beenii sheegi magaalooyinkii ay Soomaaliya kala degayeen ba ka qurux badan waan la yaabay Garowe ma jirtay soo dhisan waayeen ciiliga cara ina dilaacaan ma ka yaabaa hadhow ay qasab u dhistaan haddaba macal garoonka laftigiis ayaad mudaysaa garoonkii ariga lagu xareynay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah walaaliyaal kii loo dhanjirta ma jirtaan waxba haystaan walaaliyaal faaniya bataqi sidan iyo waxaan u isla tagtay wixii walaaliyaal runtii wixii ba ay marasi cadayntii haddaba magaalada waliba qofka kamarada ku qabanaya wallahi shoonaya walaaliyaal ila magaalada marka la sawirayo ee qofkii xagga sare laga sawirayo dhamaan waa lagu qabtaa wallahi shoonaya anu goorma nin sheego inagu yiri intaan xag ku istaagan koorna kala uga baxay wallahi inana been ii sheegin waa magaalo yar weeyaan haddaba wiilkii Sharma Boy waa laga masaafuriyay waxaana loo masaafuriyay wadanka Afrika ka bacdi markii isagana wiilkii kale la socday maslax midaye ka soo jeeday beesha ciisana loo masaafurinayo magaalada Jabuuti labadii wiil saasa loo kala tuuray u fiirsada walaaliyaal haddaba ninka la yiraahdo Sharma Boy xamar inuu ku laabto doonay laakiin xamar waxa uu diiday inuu ku soo laabto heer xamarka uu diiday ama dadka Muqdisho jooga ku yiri maya ninkii qabyaaladu qaaday baa ee markuu dhex tagay tolkii qoriga qaatay buu ahaa walaaliyaal isagoo fanaana ninkii qoriga qaatay buu ahaa ee waan la dagaalamaya hawiye walaaliyaal u fiirsada cadada iyo cadaawada xaqay ma jeerteen uu ka qabo koonfurta ayaan ku tusaya haddaba isagoo fiidiyo duubaya oo gabadh yar la joogta ay ku tiri xagee tagaysa wuxuu ku dhahay sheegin buu Soomaaliya ma tagay Soomaaliya waxay noqotay markaa meel laga ishishayo ama meel la nacayo bay noqoto uraysa haddaba qof kaste sida ay sheegayso dadku isku wada midna ninka Sharma Boy waxaan la yaabay ninkan inuu jaahil yahay waxaan la yaabay una waxba soo baran inkastoo agoon yahay uu gacan ku dhig leeyahay anigu ma doonayo
walaalkii nin dilay ayuu dilay qofkaasina ilama aha inuu gacan ku dhiig leeyahay sababtoo ah walaalkii ruma nin ku dila galgacayo iyo isaguna dilay ani ilama aha ninkaas inuu gacan ku dhiig leeyahay walaalkaa ninka dilaa inaad dishid maaha gacan ku dhiigla saan arkaya walaalayaal laakiin haddii qabiiladu ay ka heshiiyaan majeerteen dhexdooday ahayd walaalkii isaga nin ka weyn ayuu wiil majeerteena oo ka soo jeeda cumar maxamuud uu ku dhex dilay magaalada galgacayo isaguna berigii sakhraan buu ahaa uu soo baxsaday wuxuu ku dhex dilay magaalada galgacayo isagoo dhalinyar wata kabacdina reer xamarka oo ka soo saaray qof dhalaalaya oo ka soo saaray dhalaalaya kabacdi markuu tagay magaaladii uu ka soo jeeday ee garawana wuxuu ku hadlay waad ogey haddaba waxbaan ku tusayaa cajiib magaaladii say noqotay foolxumadeeda ku tusaya magaaladii ka dheeraada walaalayaal ka carara kolleyba majeerteenka caawa ma seexanayaan marka magaalada tusa laakiin waan ni tusayaa walaalayaal waa magaaladeeni waan ni tusayaa magaalada saan ka yimida weeyaan maxaa laska qarqarinayaa maxaa soomaalida looga faanayaa walaalayaal magaalooyinka ka qurux badnaada waliga kuu sheegay war burcadana ka qurux badan burca boorweyn maxay tahay waa tuulo yar burca ka qurux badan oo wallaahiya maxay tahay boorme maxay tahay waa tuulo yar boorma ka qurux badnaata oo gadabursiga ay ka dhigteen maxaa kaa galay berbera maxay tahay soo maaha meel xeeba maaha berbera ka qurux badan jabuuti maxay tahay soo meel kurul maaha oo kaneeca taallo jabuutia ka qurux badan oo dhibica iska daa iyada xamar iyo waxan hargeysiya xamar iska daa hargeysiya xamar hargeysa meesha la dhaha caasimada waa caasimada labaad isaaquna aad ba u dhistay nin kasta isaaqoo qura aan dhisan gadabuursi badanna u dhistay weli waxaa ka dhistay wasiirka maaliyadda nin ka soo jeeda gadabuursina waxay ka dhisteen dabaqyo waaweyn bay ka dhisteen isaaqu ay ka dhiseen sababtoo dabaqyada ugu badan hargeysa dadka ka dhistay gadabuursiga ugu badan oo aad sanadkan lacagta ilaahay aad moodaysid inuu u xoobiye haddaba dabaqyada ugu dhaadheer ee hargeysa niman gadabuursiya iskale okay haddaba waxaan ku tusayaa haddaba ka yari marka uu tegaya ka baxaya magaalada iyada xamar iska daa xamar waxa laga dhigay maxaa kaa galay xamar waxa lasoo bandhigay garoonkii waxay la mid noqotay caalamka ee Chelsea ay ku ciyaaraysaa ama Liverpool wallahi inaana been ii sheegay no dadka reer xamarkaas lacagta meesha ay ka keenaan laakiin isla markii buu dhisay waan ka yaabay meesha burbursanayd maanta sawirka laga soo qaaday waa baraan kula wadaago walaaliyaal inna lillahi wa inna ilayhi waxa la yaabaysa sawirka sida ay ka dhigeen baad la yaabaysa meesha waxaad moodaysaa inaad joogtid qaahiraad moodaysaa waxaad moodaysaa inaad joogtid Dubai waxaad moodaysaa inaad Paris joogtid waxaad moodaysaa inaad Belgium joogtid walaalayaal waxaad moodaysaa inaad Faransiiska joogtid wallahi inaana been ku sheegay waa ku tusayaa Soomaali waxa ka heshaa itusoo taabsi waxbaan ku tusayaa ilaah baa nigu dhaasho fiirsada walaaliyaal ilaah baa nigu dhaasho fiirsada xaasidnimada iska daay u fiirsada barsaw dhisanta u fiirsada bal ilaah baa nigu dhaasho fiirsada iska daay xaasidnimada ma fiicna xaasidnimadu shayga xaasid la yiraahdo quraankeenu ilaahay ku sheegay wa min sharri xaasidin idaa xasad ma fiicna xaasidnimadu inaad ani xaasidid ma fiicno inaad walaalka xaasidid ma fiicno inaad qof kale xaasidid quraankeenu ilaahay ku sheegay ilaahay iibaanka niga qaadiya Soomaaliya haddaad tihiin iibaanka ayaad laadi qabiil iyo balaayana dhex martay maanta quraanka iyo diinta waxaad ka aaminsan tahay qabiilkaaga waad ogeyd wiilkii yaraaye gaalkii weynaa wuxuu ku hadlay ee majeerteen wuxuu yidhi xaramkii dhannaa ee barakaysnayd garawaan ka jecelahay buuri garawar maantaan u soo sii daynaya waxay tahay u fiirsada walaali xaramku u hilaacayaa baan kuuri nabigeennu subhanahu alayhi salaatu wassalaam nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaato ayaa maanta meel dhan oo laga cibaadaysan uu maanta nabigeennu ku aasay alayhi salaatu wassalaam nabi maxamed ayaa maanta wiil yaro sakhraana marka uu soo cabe dhalo uu yidhi garow waan ka jecelahay hadda garow maanta ku tusaya way baabaasan tahay maanta caawa nihaya garow waxa la yidhaahdaba sheekha yar garow nookeen garow maanta nihaya walaalayaal hal xaafado qura weeyaan hal xaafado qura waxaana ku tusayaa saddex magaalana waan kaga tusayaa haddii la dhaho fiidiyoga saddex magaalo kugu tusayaa kale haddaba waxaan ku tusayaa magaaladii xamar wata bal ilaah baa ku dhaarshay waxba indhaas qabinna walaalayaal iska raalli ahaada haddii ma jeerteeno qalad kuu dhacay u fiirsada waa magaaladii xamar
barilaah baan inagu dhaarsho fiirsada waa xaruntii muqdisho Soomaali marka lana arko imika marka isku dhantaniyo marka dadkuna arkaan cadaanka wallahi inay wax kale oran caasimatu Soomaal muqdisho baa lagu leeyahay la ilaaha illa maxamed rasuulullah ya Soomaaliya baa lagu leeyahay laguma la yaa Puntland laguma la yaa Kismaayo laguma la yaa Hargeysa ya Soomaaliland wax al Soomaaliya bal fiirsan magaca qura ku dilaya abaha jaahil ka wasa magaca qura ayaa ku dilaya maskaxda iska qaadi u fiirso marka hoyga xamar u fiirsada barilaah baa nagu dhaasho u fiirsada warunta Soomaaliga habar bay ka dhacay sababta Soomaaliga shay la tasana Yurub jooga wali loobeyga raaleedo walaalayaal warinteed gabadhaas waxay soo qortay Yurub baan ku raagay inta badanna Soomaaliga aad baan u jajabsanaya dad badan waxaan arkay fiidiyoyada markaan ka baxo committee-gan marmar eega dad badan oo le Soomaaliga aad iskaga soo dhis warunta walaal shay la tasana ka maqnaa Swedish ya afaf kala duwan baan ku hadlaya walaalayaal Soomaaligu waan iloobaan cunay walaalayaal haddaan sii joogo 10 sano dambe waan iloobaya walaalayaal waana ka tagaya okay eega daba bal u fiirsada ilaah baan inagu dhaarsho fiirsada bal u fiirsada xaba haddaba waxa tusaya magaaladii Puntland ma tusaya ee ka dhaxaysa ay daaroodku iska lahaayeen ma tusaya in koob iyo 10 ka imid sida yahay yaan tusaya wax yar marka aan ku laabta hadii saan iska bedel weydo wallahi inaan waliga dib ugu laabanay meel ay joogtaan aan istaagay inaan runta inay sheegay fiidiyogana waa fiidiyo duumay magicii ilaahay baan ku dhaartay haddayna sida iska bedelin inaan dib daba ugu noqonay oo soo eegeen cag ay leedahay inaan dhigay oo ilaahay aan ugu dhaaranaya malaa'ig baa garbahayga saara haddii sida ay iska bedel weydo magaalooyinka yar qabiilada kale ay leeyihiin baa ka qurux badan xajiyada markaas ku soo qaracaysa Muuse Isaaq in laga hadlayo yersuga wax yar ana ku soo celinay xaji wax yar Isaaq ayaa ka hadlaya walaalayaal okay mid baan idin sheegaya haddaba waxaan ku tusayaa haddaba gar waan ku tusayaa waxa dhaca haddaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sababtoo sharaf iyo karaamo walaalayaal wax kastood ku jirtid iyo wax kastood akhriyaysid warkadkooda ku jirtid waxa kala weyn xaajiyada kala weyn walaal waxa fiican dumarka in la sharafaa fiican walaalayaal anaku dumarka aan qabno sharaf iyo karaamo inaga mudayn waxaan doonaa hadaan ku jirno iyada ka qiimo badan walaalayaal haddaba mid baan leeyahay waxaan ku tusayaa marka uu ka baxsanayo waxaan ku tusayaa hadda wuxuu ka dagay Zambia in adeerkii baa ku soo dhaweeyay wiil majeerteena waxa ku soo dhaweeyay in adeerkii majeerteena magaaladii Garowe hadda inta meel ku laabto magaaladii Xamarna waa la diiday meel ku laabtana ma jirto magaaladii Hargeysa ee Saaqana uu soo caayay meel ku laabtan ninkaasi ma jirto majeerteenkaasi loo mid baa u soo dhaw maanta majeerteenka hal fidib baan u tuuraya oo waxaan u tuurayaa sira qaabka majeerteenka ni dhow baan ni sheegay horta in tusan fiidiyogiis جبتك عاو مصري حنيا بيه كل بيعبياني اك واكن اك waxbaan ku tusaya majeertanka iga raali wada walaaliyaal hadii waa magaalada ma tusaya dadka iga raali ahada magaalada inaga bahdila ma doon laakiin dadkan tusaya eeg waka looma sheegayo اوكي نتوس ولا القرو نتوس وايه او انا كلا سocona waan kula soconaa airportka نتوس magaalada waaye safarka Soomaaliya maaha bashkaay waa lagu jeedaa wakaas baleeg safarka Soomaaliya maaha buu kuuri intii buu ka hadlay khadkeedu ku jirta maaha buu safarka Soomaaliya maanta meel laga faanay noqoto walaaliya oo la naco duliye noqoto maaha safarka Soomaaliya hadda waa meesh ku soo caana beelay أبا هي صخران كطايبة أسكك إلا أسكك وحاسة لقول يهي حمر باص وصارتك كور إله بان نقول أشياء قفك بلادك مركو سهنجي وحلقوسي وكحارة ورا ليان سيابك لأنه قطع ورا ليان وحكون ماشو ما هبوا للصومالية بالفرصة أفريقيا أوريسو تكي وسامبيا من أوريسو تكي ورا ليان مركز سوري ما هالصومالي
qalbigaana dilaacay walaalayaal soomaali baan ku dhimanayna magaaladeen hadda waxbaan ku tusaya waa yahay soomaaliya ma hal gulay okay itus waa yahay waka natus tuulada gari waa la soo qoraya way soo socotay sigada waa kale okay gabadha natus waa yahay soo daaya waa soo daaya way soo socotaa degdegi waa kuwa dibadda usoo baxeen raalli ahda codka hadduu googaayo waa kaa magaaladii wataa gaariga waa dhex maray joog waxbaan tusayaa waa hal wadoo qura xagga sare igu qabo yaro dhaafeelidhi waa dadka waa jecel aniyo ana dhaafinaysiga xagga sare iga qabo daawo haddaba kaase waxbaan tusaya daawo wataa baleen wataase ila daawahay ila daawo kamarada waa laga soo qabana ee xagga sare laga qabane waxay xagga igu soco midigta igu soco midigta igu celi waka hal wado qura dhex marta magaalada yersug hal wado qura dhex marta magaalada walaalayaal hal wadaan ku magaalada dhex marta waa magaalada Garowe hal wado oo qura dhex marta halka wadana waxay jirtaa airport meeshaan ka hadlayo faham walaalayaal ifahma ma jiro meeshaan ka hadlayo haddaba wadadan ku tusayo wata magaaladu waa inta wadada magaalada waa inta bes wakaad arkaysid meesha uu dhex marayo waxaan ku tusayaa haddaba kamarada ayaan ku tusayaa xagga dambe eeg midigtay raaci waka magaalada waa inta wakaa laga soo baxay magaalada duurka waa la soo galay dadku majeertaan iyo faan bay soo qorayaan haddaba meesha aan kugu sheegaya meeshaas 2011 sanadka kamida magicii ilaahay baan ku dhaartay waa sidii haddaad sidaa ka bedeli weydaan magicii ilaahay baan ku dhaartay inaan soo caga saarayn meel ay Puntland ka mid tahay walaaliya bal u fiirso ilaahay baan ku dhaartay u fiirso dadkii oo dhan baa soo qoraya tuulada oo ka darkiis bal u fiirso bal dhulkii oo dhan baa banaana eeg bal u fiirsada bal ilaahay baa inagu dhaartay u fiirsada walaaliya war mayna ka waalan mise cadan baa laga heesayaa mayna ka waalan mise cadan baa laga heesayaa walaaliya haddaba waxaan ku tusayaa magaalada ayaan wax yar kugu celinayaa inta yar dusha marka lagaga qabanayo indhahaaga aad u soo dhowey wala indhahaaga aad haddii kale muraada qaata walaalayaal anu muraadii nimaha iyo muraada qaata indhahooda saxiyiin caadi waxay u daawo in yar daawo ani uma socday tirisafa dadku dhow wata magaaladu wata wata magaaladu waa intaaba halkaa wadaa dhex marta magaalada intaa le Garowe weligeedba tuulay ahayd wax kale ma haysa xaggee tuulo ka ahayd magaalada iga ceebeen wadarkiisi walaaliya magaaladu halkii wadda dhex maraysay oo qura intani ma dhismin war waa lasla yaabo walaaliya gadabursiga waa naga qurux badnaaday isaaqi baa naga qurux badnaaday ogaadeen baa naga qurux badnaaday nimankii cafar ee Jabuuti iska laabay naga qurux badnaaday ummadii oo dhan walaaliya u fiirsada walaaliya marka waxyaabaha meesha yaal anu ma garan karo magaalada kale teegaysa anu ma garan karo walaaliya magaaladii lascaanood
يا إنك قروح بناطي سناك بإنك قروح بناطي أديكو اسكو سوكو أنت مقالة اسكدا يا حمر يا واحد اسكدا مقدش ما تليد كيغا بحيا هرقيسة دافتا ولا ليا ولانيرتي إساق ويكسو دوبينو رير قيسا يحناقين إساق كحناقين يريدين مقالة صوت صنيد بالبرسيني سيودي سميسا سان نقونيسا مانا بينو شاكيسي واحد سميسيان فوتوشوب باتكو سميسا والله فوتوشوب ما أنا نسيتو سين ديغسو دوبي دونو فوتوشوب ما وواحد ريال يوين ولا ليا سومالي دو واحد لدوليا إن رونتا إيا حقيقة لدسو مانتا هرقيسا يدو ويدي سنتا إلا محمى لكن دبقيدا ugu weyn nimagada buursiya iskale waliba hargeysa waxay ku fiican tahay iyadoo hargeysa wadalaanta dilaysa waa ciriiri meel kaste hadduu roob soo dhaco khalaas aabaha baad wasaysa kuma bixi karaysa laakiin meeshan garawey waa meel bannaan majartaanku iskaga soo dhoofay maraykan buu ku raaxaysanayaa nabadgeliyo magaaladiina saasay u qurunta walaalayaal meesha dari baa ka talinaya garoonkii wuxuu noqday garoonkan ku tusaya garoonku xaafad buu noqday adhi lagu xareeyo garoonkan ku tusaya walaalayaal wallahi baad nixi wallah garoonka siduu yahay inaad ka nixiyood ka ooyi ood ka baxsan meesha waxbaan ku tusiyeyso garoonku siduu yahay adaa ooyo baxsanaya oo odhanaya waxaan maxay ahayd waxaan magaaladii ma waa kan garoonka waa xaafadda ilaah baa nagu dhaarshay waa gurigaaya waa kaa garoonka bal ilaah baa nagu dhash waa xaafad weeyaan waa 5 maqsinood dhisati weeyaan waxa garoon lagaga dhigay oo waxaan telefoonka ma kala jabiyo caawa waxba in tusaya waad arkaysaa guriga aan ku tusayo waa 2 maqsin waka waxay ka dhigeen garoon waka garoonkii aad aragtid cigaal international iyo aad aragtid aadan cadana waad yaabisay ooyisa walaaliya war waxaan xaq maaha waxaan leeyahay ma jirteen ka dib isku noqda waan meesha ka dhisa meesha niyo meesha maraykanka dad ku raaxaysanaysa naf male waxa wadankaaga wax ku dhaama jirto oka akuwa abliera akuwa garoonka yaraa kusoo galashada maqsina walaaliya akuwa majartaanka soo qorayada wase caasimada nooda okay waa nidaynaya وانا قلعي وين الدينية مجرتين كوكو وضع حناق ولا ليه وكو عايد سوقري وضع حناق اوكي مجرتين فيلم ونقضة دسا انو تاساي نيشاقيا ما عايدتنا ماذا يكون طالع انا عايد ميد دلولي كما قليس دعوية هبار لبضو اللي يكري ولا ليه وحاني نيشاقيا ماشا ايه ديساتين ماشا وح كله مجرتو ولا ليه برنامج كي وانكو دير هذا رالي هذا maamulka Soomaaliland waxay dib toogashaa ku xukumeen wiil ku dilay wiil jaamacadda dhiganaya oo magaalada Boorama ka dhiganaya jaamacadda Amuud waxa lagu xukumay saaka dib toogashaa ma ku faraxsan tahay mise wad ka naxday walaaliya barnaamijka waxa daadiin doona hadii la yiraahdo maanta sabtida ayaan daadiin doona waxaan ilaahay walaaliya waxaan iga tagayaa guul baan iga tagay kullayba dadku isku wada mid maaha laakiin dadku walaalayaal waxaan doonaynaa dadku inay soo gaadaan nin kastaba magaalada uu ka soo jeedo sida ay noqoto walaalayaal waxaan soo bandhigi doonaa magaalooyinka ugu qurux badan hadii taadiya la yiraahdo iyo waxaan soo bandhigi doonaa magaalooyinka ugu fooshaxoon walaalayaal hadii la yiraahdo waxaan soo bandhigi doonaa inta kastoo magaalooyin badan la soo diray laakiin waxaan eegi doonaa ama waxaan isbarbardhig ku sameyn doonaana qabiilba qabiilku ka weeyahayna waan soo bandhigi doonaa hadii la yiraahdo inkastoo qabiilba qabiila ka weyn laakiin sida uu kala dheereysan yihiin ama sida ay u kala ilbaxsan yihiin sida ay u kala habla qurux badan yihiin sida ay u kala nasabsan yihiin sida xagga soo dhaweynta ay u kala wanaagsan yihiin sida ay u magaalooyin kala qurux badan yihiin adigu barnaamijyo badan baan nisu sameyn doonaa oo xiiso leh oo jeclaysan doontid qabiilkaaga hadii la bahdilana ka raali hada walaalayaal sababtoo anaku barnaamij run baan soo gudbinaa baaniyo waxa walaalayaal kuma jirto waxa iyaduna ee dheema waa wax cadaana on ku soo dirayna walaalayaal guul baan rajeynaya farxad baan rajeynaya walaalayaal kullayba waan sarki doonaa hadii la yiraahdo hadaan nool lahay laakiin magaalada inaga dhisa walaalayaal wallahi inaga dhisa magaaladu khalaas bay noqotay magaalada ka gaadha magaalada 2000 iyo magaaladu waxay noqotay 2011 sidee laga soo baxay waa sideed marka waxaan ilaahay guul baan rajeynaya walaalayaal barnaamijka inta soo gabagabeeyay kullayba waan ku dheeraaday ga raali ahaada ma doonin inta inaan dhaafiyo waxaan ilaahay guul baan rajeynaya walaalayaal guul baan rajeynaya dadkaygu waxaan leeyahay
sharaf iyo karaamo ku noolaada kollayba sheekhayr waxyaabaha u keeno oo waxyaabo dhaba walaalayaal anagu waxyaabo caddayn ayaan keennaa walaalayaal marka inta badan dadku waxaan sheegaynay waxa magaalada maanta keenay ee dadkaan ugu soo bandhigaynay Sharma Boy oo ka baxsada magaalada laga masaafuriyey ka bax lagu yiri magaalada oo xoog lagaga saaray walaalayaal saaka isaguna haldi doona hadii la yiraahdo dadka Zambia ayuu gaaray waxa ku soo dhaweeyay in maadeeri walaalayaal hadii la yiraahdo ma jirtaanki ugu badnaa Zambia wuxuu gaaray dalka Afrika u gaaray ka bacdi markii uu iska diiday Soomaaliyana uu nacay Soomaaliyana suxul soo caayay walaalayaal guul baa niga tagay sida iyo nabadgeliyo سيدا نبتقليو قفك واحد بلاش تدير الشيخ خير ويان حناقة ما عركة قالوا ورالي أنا مفهوم طيع عطين تاكين قال ده إنك لسه ما تشدي بويا أنا أنت سنك بيتك حبلها مقدشيو مركع عقالة موجودها بيدابو ما نقول دريتك عليه ولا حدا تشيكا مركادة بورا مصنادات تيري دابا ما موستا حبلها موستا بلا شو وينها يو قول بني كنت قول عليها سيدا يو نبات قليو مقدشيو مركع عقالة موجودها بيدابو تسمعي كلية متكارسة ولا حدا تشيكا مركادة بورا مصنادات تيري دابا ها عباد شو dadkii bay jecel koor safa aad baan ku salaamaya waqtiga yeelanaya laakiin waqti sabtida hadda waqti badan ma la joogi doonaa diyaar sharaf iyo karaamo ayay intaay dadku ay jecel oo ilaa waqti sii joogo sharaf iyo karaamo ay tahay aad baan ku salaamaya walaashay qaaliya laakiin mar kale jaanis ayaan siin doonaa walaal سيدا أيوه نبات قليو ولا خير بني رجينيا قف كستنا وحن لها يوتيوب كا تي في كرئيس وتردو كدافي يوتيوب كات كلا سعنيسا سيدا أيوه نبات قليو